magacu waa Asad Ismaan Cabdullaahi waxa uu ku dhashay galadi dhulka Itoobiya haysato waxa uu na dhashay 11kii bishii 6 1985 waxa uu soo noqday agaasimaha ciidanka amniga ee Puntland ee marka la soo gaabay loo yaqaano PSF 2011 ilaa iyo 2018 PSF waa hay'ad u adeegta danaha sirdoonka Mareykanka aabihii ayaa dekreeto madaxweyne loogu magacaabay wixii ka dambeeyay hanaankii xil wareejinta hay'adda PSF ma ahayn mid dawli ah ee waxa uu noqday mid dhaxaltooyo ah isagu wuxuu ka dhaxlay aabihiis haddana wuxuu ku wareejiyay oo uga tagay walaalkiis markii uu ku dhawaaqay inuu yahay musharax madaxweyne Puntland muddadii hay'adda uu joogay waxa uu ku kacay musuqmaasuq badan looma sinnayn xilka hay'adda iyo shaqaalaha kaliya waxa uu ogolaa inay ku biiraan xirfadiisa hoose boqolkiiba 98 shaqaalaha hay'adda waxa ay ka soo jeedaan xirfadiisa hoose qof kasta oo ka mid ah qoyskiisa waxa uu ku dhawaad 10 guri uga iibiyay Puntland iyo wadamada dibadda ah gaar ahaan Yurub shacabka Puntland ayaa isweydiinaya Asad oo cadaalad ka sameyn waayay PSF sidee cadaalad uga sameyn karaa bulshooyinka reer Puntland ee uu hogaankooda raadinayo shacabka waxay baqlay asad muxuu yahay asad ma taqaana tore asad dadka yaqaana wareesta asad xartan geedu beera ubaxyu beera jidad budisa waxaas macna ma taqaan rag dhiigood baa waxa weey geedahan la beeray la waraabinay rag dhiigood way miyaa warkaysan macna miyaa warkay kuwa curan baa wali ku maqan ma garateen aniga raggaas meesha ku jira wiilasha meesha ku jira aan ogahay ma taqaana nin kaliito kuma jiro nin kaliito kuma jiro hadana waa la bahdilaa saasay tahay waa la bahdilaa ayagoo la bahdilaayo baadilkooda aan ma qaadan karo aniga ka soo tagay alxamdulillah rabbil aalamiin xuriyad baa ku nool meel baa jooga Asad waxa uu diiday inuu fursad siiyo dadka ka soo jeeda deegaanada ay ka jirto colaadda gaar ahaan deegaanka galgala oo uu ka socdo dagaallo u dhaxeeya ciidamada iyo kooxda shabaab isagoo oo ka faa'iideysanaya xiriirka uu la leeyahay sirdoonka dibadda ayuu cid kasta oo ka soo horjeeda aragtidiisa waxa uu ku shabadeeyay argagaxisnimo tan cajiibka ah ee dad badan ka yaabisay ayaa ah in dadkii uu shalay dhibaateeyay ay maanta yihiin kuwa la shaqeynaya oo ololihiisa gacan ku siinaya ila xoogaal ah ayaa xaqiijinaya inuu jiro heshiis dhex maray Asad iyo ganacsato oo hadda ka hor saaray tuhun argagixisnimo Asad ayaa u sheegay ganacsatada inuu ka yareyn doono culayska saaran haddii ay kala shaqeeyaan sidii uu ku noqon lahaa madaxweyne waxaa la aaminsan yahay inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay dilal ka dhacay Puntland gaar ahaan 2010 ilaa 2012 ujeedkiisu waxa uu ahaa inuu sii xoogaysto qandaraaska uu ka haysto taliska Mareykanka ee Africom loona aamino in kooxaha argagixisada saameyn weyn ku leeyihiin deegaanka waxa aad loo dhaliilaa qaabka uu gacanta ugu galiyay dawladda Mareykanka muwaadin reer Puntland ah oo lagu magacaabi jiray Maxamed Cismaan Shibiin oo la fahamsan yahay inuusan u marin wadadii sharciga ahayd ku dhawaaqista musharaxnimada madaxweyne ee Asad Cismaan waxa ay diraysaa laba fariimood oo kala ah koow sida uu aaminsan yahay nidaamka hagbada sida ka muuqata fariinta uu dirayo sawirkan dadka reer Puntland waa u siman yihiin talada iyo hogaaminta dalka labo fahamka kale ee laga dhex arkayay musharaxnimada Asad waxay ahayd xiriirka iyo iskaashiga ka dhaxeeya isaga iyo madaxweynaha xilka ka sii degaya Cabduwali Gaas Asad Cabdullaahi waxa uu adeegsadaa ololihiisa musharaxnimo ciidamada PSF iyo hantida kale ee dawladda su'aasha kale ee isweydiinta mudan waxa ay tahay Asad waa 34 jir halka dastuurka Puntland uu dhigayo in muwaadinka isu sharaxaya xilka madaxweynaha looga baahan yahay inuu jiro 40 sano dad u dhow Asad ayaa sheegaya inay qorsheenayo inuu ka been sheego da'diisa
دام عيسنا الكين وحكومة يا ضمنا يلا دورة يلا دورة دام عيسنا الكين وحكومة يا ضمنا يلا دورة يلا دورة يلا دورة يلا دورة يلا دورة يلا دورة يا مهلا